sida la socoteen waxa isbuucan Soomaaliya aadka loogu hadalhayay waxay ahayd Fahimo Quuje oo ka tirsaneed golaha wakiilada maamulka Waqooyi Bari oo sheegtay in xilka iska casishay isla mar ahaantan ay ka tanaasushay fikradeedii Soomaali weyn iyadoona lagu soo dhaweeyay markaa kadib magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Haddaba maxay tahay sababaha keenay in Fahimo Quuje ay dib ugu laabato magaalada Hargeysa oo ayna ogeyn in dagaal ay kula jirtay maamulka Somaliland iyadoo sidoo kale xusto in ay Puntland oo dhaliilo badan ay u jeedin jirtay in iyana ay isbuucan ay soo gaartay magaalada Garowe oo ay uga sii gudubtay dowlad deegaanka halkaas oo iyana ay Hargeysa uga sii gudubtay. Haddaba abwaan Maxamuud Cumar abwaan Berdaaje oo arrimaha siyaasadda ka faalooda ayaan weydiiyay arrimahaasi. waxaan marka hore weydiiyay maxay tahay Fahimo Quuje sababta xitaa ra'iisul wasaaraha sidaad maqlayseenba uu si aad u kulul uga hadlay isagoo si gaar ah u bartilmaameedsaday qaabka u labisato iyo waliba fikirkeeda siyaasadeed iyo qaabka u cabirtaba. adeer marka hore waa idin salaamaya idaacadda iyo dadweynaha dhageysta dal iyo dibadba. adeer waa arkay arrimaha Fahimo Quuje argagaxa iyo ku dhacday ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka daaqiliga dawladda federaalka isagoo Twitterka waxbuu soo geliyay oo ku dhaleecaynayo gabadha. adeer markaynu soo noqono Fahimo Quuje horta waa qof fariidada dadka lama diido qof xaalad abuuri karta weeye xaaladna dejin karta weeye qof muqdar oo dhammaystiran weeye oo fariidada waayo waxaan ku xasuustaa doorashadii Puntland ka socotay berigii galaan galbeed raggii musharaxiinta ah markii ninkii la oran jiray Huruuse oo markii laga reebo intii Garowe joogtay oo musharaxiinta isu soo sharaxday intaba galaan galbeed la lahayd. marka waa qof aad u furfuran galaan galbadan ma leh markii la eego Fahimo Quujena waxa hormuudkii halgankii Gooja Cadde iyo Laascaanood ka dagaalamayay xagga miidiyaha bay kamid ahayd. tan labaadna dawladii u ololeynaysay Waqooyi Barina qof lafdhabar bay u ahayd halkii isimadu ku kala tageen qof lafdhabar ah. marka iyada historigeeda markaynu daba galno waxaa ra'iisul wasaaraha iyo koosgareeyay markaynu iyada daba raacno horta waa qof nool oo fariidada. tan labaad waxaan soo qaadanaynaa markii lagu tashanayay Puntland Laascaanood wasiirada Tufad Cadde iyo Bidaan rag badan ee halka joogeen qoftii media tiribay ahayd war Puntland waxaanu Puntlandina xoreysay oo ina halgantay miyaa la rabaa in laga dumiyo Waqooyi Bari qofkeed way cadeysatay. ban labaadna waa maxal marinayay waxba lagu xal marinayay way ka booday isla markaas ayaan waxaan markaa uga jeedaa Fahimo Quuje aad bay media u qabsatay waxaana qoladan ra'iisul wasaaraha qarax baa ku dhacay waayo wasiir ma ahayn xildhibaan ma ahayn federaalka agaasime ma ahayn dawladda federaalka qof ka tirsan ma ahayn in wasiirka daaqiliga iyo ra'iisul wasaarihii dhammaan oo markii dan laga leeyahay Puntland kaliya media loogu yeero waayo waxa shirar xalaale ka dhacaya ma tago waxbana kama aha xasanimo uma diro waxa siyaasadkiisa bas dhibaataynta Jubbaland iyo Puntland kaliya baa ka soo hadal la yiraahdo. marka waa tahay marka inta ku dare xamse ma hadlina xasan baa gabadha googaradeeda iyo dirceeda ka hadlay. taas waxay ku tusaysaa in sir jirtay oo xog badan ka hayso iyada iyo raggeeni reer Puntland ama reer SSC ha noqdeen ama reer Puntland ka soo jeedeen oo aynu arkeenay Xange aynu arkeenay Cali Xoosh dad badan aynu arkeenay Mahinge dadkii halkaa joogay xog bay haysaa. marka xamse karka waxa ka keenay waa xog. tan labaad waxa ku darsataa mar jigjiga inay ayda soo geliyeen dawladda federaalka sirdoonkeeda iyadoo jigjiga la yiri waxaan haynaa inuu Abi Ahmed Xasan la hadlay gabadha darteed
in jigjiga la soo geliyay iyadoo katiinad ku xiran tahay waa AI oo laga dhigayo calanka Somaliland saddex askari iyo kan Puntland iyo kan dowladda federaalka waxaa geliyay calanka Puntland iyo calanka dowladda federaalka ilaa ummadoodin doorashadeedana kama hadlin maxaa waa lagu warkacsanaya faleexaadka fashilka oo siyaasadda federaalka weeye waa tahay marka hadda Soomaaliya waxaa muuqata in dowladaha Carabta ama Khaliijka oo kale inay haatan ku loolamayaan iyo waliba kuwa reer galbeedka iyo Turkiga maxaad isleedahay waa weyn siraha Soomaaliya ka haysay iyadoo la hadal hayaba in xitaa isku day dil la qorsheeyo ilaa saacanood iyo meel ka baxsan in lagu geysto fahimo qoje adeer waa run isku daydil xamar bay kaga baxsatay xamar baa loo qorsheeyay laascaan waa loo qorsheeyay waa sidaan warluwayada ku hayno gabadha ma garaway toos u timi haddii ayan xog laascaan meel badan bay ka dhoofi lahayd marka taa waxay ku tusaysaa in xaaladeedu khatar gashay horta waa boynka labaadna dee sirarta ugu weyn oo la hayaa waxa weeye meeshkan berbera la yiraahdo dekedanaa iyo laasqora iyo arrimahan Turkiga iyo Sacuudiga iyo dowladaha Khaliijka oo dagaal hore baan u yiri waligeed laba dagaal baynu ku jirro xarbil kufaar oo xarbil islaam marka dowladii xarbeed ee Sacuudiga ugu weynaa bay arkeen in Israa'iil soo gashay in awoodayeen ku lahayn badan gacanka cadmeed iyo badda cas taas ba marka waxa jirta olole buuxa oo Sacuudiga ay iibinayaan iyo Qatar iyo Turkiga iyo Masar in ber Somaliland iyo Puntland saaxada laga saaro oo laga dhigo Xasan Sheikh Maxamuud mandate ka dhamaaday maqaar baa laga dhiganaya magaciisa Soomaaliyeed baa wali isaga raba in lagu ilaaliyo si danahooda loo qabsado istaraatiijiyada loo digo oo dad lagu abuurto marka iyo khayraadka ku daboolan baa lagu tartamaya marka fahimo xogta laasqora iyo mayr lagu galayo iyo xiis bay ogtahay iyo ama burburinta Somaliland ama burburinta Puntland balaankii la soo dhigay li hadda waa arkay ciidamada laga qoranaya gobolada dhexe ciidamada Sacuudiga qoranaya dhacdooyinka Puntland ka dhacaya iyada waxa salka ku haysa marka dowlad cad oo lagu soo qaaday Puntland weyn tan labaad dowladaha xarbeed hadday Masar tahay hadday Turki tahay hadday Qatar tahay hadday Sacuudi tahay jaanis baa Puntland laga waayay siyaasadeed baa laga waayo Puntland siyaasadii bay kaga adkaatay koonfur iyo dowladii islaamka ay beenta la ordayay marka fashilad bay mar labaad ku noqotay inayan maxaa keenay in ciidan hadda maandooto ina maqashiyeen kala maqaane dowladda Imaaraadka Xasan Sheikh Maxamuud iyo groupkoodu waxay yiraahdeen wax walba anaga diyaar nala soo deg wuxuu yiri hadda Sacuudiga ka saartaan ciidamadan uu qoranayo waa wax jaraa'idka gaaladu qorayaan anigu midaan maaha baan idin imanaya kanana saari karaan Qatar iyo Sacuudiga iyo waxa marka siyaasadii baa lagu kala adkaaday marka gabadha tan xog bay haysaa waliba way ballan qaaday inay warabi doonto xogtan waynu ka sugayna wayna sii deynaysaa Puntland iyo Somaliland waan uga mahad celinayna gabadha in la badbaadiyo siyaasadda Puntland gaar ahaan sirdoonka Puntland iyo sirdoonka Somaliland haddaan ma shacab weyna waayo xogtayadu khatar bay ku jirtaa guud ahaan Soomaaliyeed ma anagu Puntland u hadli maayo Soomaali weyn baan u hadlayaa xogtayadu khatar bay ku jirtaa marka in gabadha la ilaaliyo siyaasadda Somaliland waan ku amaanay siyaasadda Puntland waan ku amaanay way waxaalaadka khatarka wadamada maafiyasiga iyo gaangeystarnimadu ka dhacdo calaamaadkeedii baa dalkeenu yeeshay marka fanfanka Puntland ka dhacayana wax kale ma yar riixaya xasan awooda male afkooyu iyo tagi karin bal cadu ku dhashay buu tagi karin waxa wada waa Sacuudiga iyo Masar iyo Turkiga iyo Qatar dagaal bayna ku socda marka dagaalkaas xog marka ujeedka ay ka leeyihiin maxay tahay marka wadamada Sacuudiga iyo Qatar iyo ujeedka Puntland ay u burburinayaan maxay tahay Somaliland waynu garanayo Israa'iil bay iyadu heshiis la gashay adeer waxa loo burburinayaa wadanka in la helo waa boyn horta adduunka interest buu noqday dhaqaale dawladahan hadda aynu leenahay
sacuudiga iyo dhaqaalahoodii imaaraadka iyo qatar iyo dhaqaalahoodu adduunyo dhan bay degi karaan oo maal gashan karaan. isteedkan wuxuu ku yaallaa istiraatiijiyad khayraadkiisa lagu tartamaya in lagu yeesho oo dullaala laga noqdo sidii Venezuela ama Libya batroolkeedii aaway intee dowlad ku heshiiyey oo sheer ku qaata. qatar baa ka mida, sacuudiga ka mida, dowlado badan baa sheer qaata batroolkii dhammaa ee Libya. kii Venezuela waa sidaas oo kale dowlado badan oo ka mid tahay Ruushka iyo dowlada Laatiiniga iyo Maraykanka iyo waa la qaybsaday. marka sidaas si la mida baa waxa la rabaa waddankan istiraatiijiyadda ay hadda sacuudigu go'doon buu ku jiraa oo baabalmadab iyo sidqaadsi shidaalkii marayay waa qarxootiinta ku dhaaratay biyihii Hormuz oo xagga badan la yiraahdo Gulf Sea Kuwait iyo marta Bahrain iyo Qatar iyo Imaaraat oo Hormuz ay soo marta badaasuna waa tan dagaalku ka socda Iran ay xirtay. marka nahana kalena waxaa loo dagaalamayaa 10 sano iyo 15 sano soo socda baa dagaalku sii dhacaya jadkii la mari lahaa. sidadana Soomaalida marka laga tago caalamku uma dagaalamo maanta, waxaa loo dagaalamaa 20 sano soo socota meeshii la aadi lahaa baa la sii dhistaa. marka isteedkan istiraatiijiyad buu ku yaal. China baa la interestiya wadamada ka wada waxa adduunka ku awood yeelanaya qoladii geeska Soomaaliya degta ama China ha noqoto ama Ruushka ha noqoto ama Maraykan ha noqoto qoladii halkaa gacanta ku qabata baa istiraatiijiyad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo power military ahaan adduunka ugu kow noqonaysa oo ugu adkaanaysa. marka siyaasado badan oo isjiidaya baa jira oo dhibaatooyin badan sirar badan baa jira. carabtuna wayna ku dul qaracantay markii xuutiyiintii iyo wax walba yimaadeen. nimankii koofiyad yar ahaa ee adduunku baanaa meel walba gelayaba gurigoodii loogu tegay, hubkii loogu geeyey, adduunkii si kale isu bedelay. marka waxa weeye munaafaqad baa ku jira. marka hadalka waxaynu soo qaadanay yuuna ka dhimane gabadhan Fahima Quuji horta waa gabar xiriya dhaafa waayo hadalkii maalintii waday ka timi markay Hargeysa ka degtana si fiican bay dadka u qarxisay, waa loo garaabay oo waxaadan maxaa yiri waxaad yeeli lahayd walaalka adigu baad yeeli lahayd ku taabato walaalka laguma naco. meesha duulaanka lagu yaano waa Somaliland iyo Puntland oo carabtu duulaan ku tahay waxaana loo dhimanayaa siyaasadka Israa'iil iyo Maraykan. Israa'iilna kama foga Puntland iyo Somaliland uma kala duwana, labadaba lug bay leedahay sibta dabooran. marka la eego inaguna haddaynu Soomaaliya nahay interestigan ummadda la leenahay oo in dhaqaalaheena ama dhulkeena ama waxayna soo dhisa waa u baahannahay oo Israa'iil caalamkay ka mid tahay dowladaha awoodda ama dhaqaalaha leh caalamkay ka mid tahay. caalamkana cilaaqaad bay la leedahay. inaga waxa Carab iyo Israa'iil ka dhaxeeya anaga nooma yaalin, waxna kama qaban karo. islaamnimada iyadana iyaga uga tagi mayno, kuma sharti ku xiranna maaha. marka adeer waxa xaqiiqda laga hadlo waxa weeye gabadhaas Fahima Quuji xog bay haysaa. waxaanu uga mahad celinaynaa dowladda Somaliland soo dhaweynta iyo hanashada ay hanteen. waxaan kale uga mahad celinaynaa dowladda Puntland oo iyada ruuxeeda Maraykanka ahayd laakiin in la dilo baa la rabay gabadha oo baxsad bay ahayd. maxaa keenay Prime Minister dhan inuu isqaawiyo واتو رجل إسقاوية إساقي بإسقاوية إساقو لوكتنا معها لقنا معها شرارك حلانا لو ما بييرو مركي وحلوية يعني مركي بولان يجبلان لحايا يفهمك وجه الله يرى أفكو كوها الله يرى وأفك حسن مركا هذا الوحيابها ساجرة حقبها جلتا سيكرا إيادو قلنا دادك الله استعماله وحي كوها وواحد فقنا سود ويكرتا waxay gacanta ku haysana fogeyn kartaa waayo halka dheer bay soo gashay Fahima Quuji waqooyi bari bay kaligeed ka muuqatay Soomaaliya garatan baa Puntland doorashadeedii bay kaligeed ka muuqatay oo intii musharaxiinta la falgal bay la lahayd marka waa iyadoo kale dadku waa ku yar yahay iyadoo kale waa la ilaaliyaa sharran oo khayran labadaba way xambaarsan tahay marka gabadhaan waa taageeray aad baan arinta ila darajada inay gaadho halka marto taageerayaan fududaysan waxaa loo dilayaa ama loo daba joogaan xog ay ka hayso dawladda fariidka ee baktida ee dhimatay ee xamar ee qayradeedii soo yeertay taaway xogta ka haysa aad baan u mahadsantahay intaasay noora karaa
aad baad umahadsan tahay abwaan beldaaji ayuu ahaa oo arrimaha soomaaliya siyaasadda gaar ahaan arrinta geopolitiga ama geosiyaasadeedka taagan la faguraya iyo weliba arrinta fahimo quuje beldaaji